horta magacayga waxaa la yiraahdaa Nuur Ibrahim Muumin waxaan ku magac dheerahay Nuur Geel gabadhayda magaceeda waxaa la yiraahdaa Ridwaan Nuur Ibrahim Muumin saasa la yiraahdaa anina neystayda Nuur Geel la dhahaa ama Nuur Ibrahim Shuftana waan ku magac dheerahay ma garad waa garto marka iga waran gabadhaada Ridwaan maxaa ku dhacay Ridwaan waa la dilay ciidamo uu wato nin la yiraahdo Cabbaas waa dilay magaaladii buu xiray dukaamiye waa la xiray waa la ogyahay guriyihii dadka ka soo saaray uu isugu keenay meel barxad ah oo saldhiga ah markaasuu dadkii wax loo soo saaray ma ay garanaynin dadkii markay meesha yimaadeen buu la soo baxay calamo sawiro markaasuu yiri waxaa loo banaan baxaa madaxweynaha Jubbaland doorashadii guush oo gaarad u banaan baxaysan waa kee marka madaxweynaha loo banaan baxayo waa Axmed Madoobe baan yiraahdaa ninka Axmed Madoobe la dhahay oo Jubbaland waa gartay sawiradiisii iyo wixii keeno wuxuu yiri naagaha intuu baxo nimanka dadkii marka way buuqeen waa lagu fooriyay markii lagu fooriyay oo mataqaana asagii baa lagu tuuray arigii wax baa lagu shooy sawiradii baa la jeexay markaasuu xabadaha ku furo waa gartay gabadhii halkaas xabada ay kaga dhacday meesha kaadi hayst ay kaga dhacday sanaha dhabarkooda ka baxday gabadhii meesha ayaa laga qaaday isbitaalka inta la geeyna way dhimatay ma garad marka dadku aad tiri way banaan baxeen ama way buuqeen oo dhagxaan bay ku tuureen maxay diidanayeen ilaa wixii loogu yeeray way garan lahaayeen markay yimaadeen oo amar bixiyo waad banaan baxaysaan sawiradan baad qaadaysaan warka magaalada waad ku soo wareegaysaan waa ka xaalayn marka waa laga diiday marka Ridwaan ma waxay u dhimatay rasaas dad areysan ama dad fawda sameeyay lagu furay mise ayada la raasadu waa la tarag gareystay qof la beegsanayo qof ay la beegsanayo macnaha qofta hadii oo rasaas waa la yaqaanaa rasaasta hadii shacab lagu kala ceerinayo dusha loogu ridaa koraa loo ridaa hadii rasaas nool tahay gabadhu waxay kaga dhacday halka xudunta hoosteeda kaga dhacday waa qof afsaar loo saaray ma garad marka iyadu gaar looma raasanayna dadka lagu furo marka dadka lagu furay wadadka waa lagu furay oo shacabkina waa lagu riday ayadana waxa dareemaysaa gabadhu maadaama ay sawirkii iyo wixii ay mataqaana tuuriyeysay qofka oo farojada waa la garanaa ma ogtahay farojo maxaa ka wadaa farojo maxaad ula jeedaa waxa qofka macnaha fircoon oo hadalka soo tuurayo waa ma ogtahay waa garta ma yeelayna qofkii dhahayo marka ma runbaa in gabadhaada Allah u naxariistay ay sawirku ku istaagtay ay hormuudna u ahayd dadkii kale dadka say sheegeen sawirka aniga hadda ana xamaran kula joogaa laakiin waxaad aragtay oo ajal kulli dad baa ii soo tuuray gabadhoo la wada waxa dad baa meesha jooga ma garan waa garta gabadhu sawirkana way tuurtay wayna ku istaagtay ma garan waa garta marka yaa kale wax ku noqday meesha waxa ku noqday 3 qof oo kala ku dhaawacan waa garta marka waxa iiga warantaa ilaa hadda wax oo ciidamo ah ama askar ah oo loo soo qabtay ma jirtaa falkii gabadhaada lagu dilay maya yaa ku soo waco kugu wargeliyay dhaawaca iyo geerida gabadhaada hadii ba ani cunugta khamiistii 9 saac aan kala tagnay oo wada hadlaynay ma garad waa garta telefonka ay gala hadlaysay isla markiiba waa la igala soo hadlay waa garta waka imisa jir way gabadha waa 16 jir way yaad la xiriirtay oo aad ka dalbatay in la baaro wixii dhacay oo ciidamadii geestana la raadiyo anigu waxaan yeelay nimankaas oo markaan arkay ninka hadalkiisa oo haddana idinkana waad aragteen oo leeyahay Axmed Madoobe saanway laptop nin wata ma aha nin halgamay waay ninkii diidan waa la dilaa waa shabaab waay ninkii diidan waa la dilaa madaxa ay si xanuunay ma garad waa garta يعني wax oo bin aadan oo ku hadla ma aha qof weyn oo mas'uul ah wax oo ku hadla ma aha barkeenu baarlako nin general oo sheegana yani wuxuu hadlaa si mataqaana qof
oon mas-uul qaadi karin waaye marka hadalkaasna waan dhibsaday ma garat marka yaad la xiriirta adiga oo aada wax weydiisa saasoo dhahay naagihii shabaab waaye kan waaye gabadhayda shabaab ma aha meel ay shabaab joogana weligeed ma tegin anna ma ahi ilmahaygana ma aha ma garat ma jirtaa cid aada la hadashay geelow oo aad ka dalbatay in la baaro wixii dhacay aniga waxaan tagay maxkamadda xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sidaan u tagay aniga waa garta sida wax u dhaceen aan u sheegay wixii oon documenti ka haayana wixii documenti aan ka haayana waan dhiibay amaba aan video kasoo duubay wixiina waan ku wareejiyey maxkamadda ciidamada si ay baarid u galaan halkaas laakiin maanta waxaa la ii sheegay in ay tageen xaafadii yaa tage waxaa tagay maamulka degmada imaadayaa la yidhi marka la hadal ma la hadlayan ku dhahay degmaani waa garta maxay ka dooneen marka yaa maxay ka dooneen xaafadaada waxay ka dooneen waxay leeyihiin macnaha dad baan dilnay waay bay leeyihiin waa garta way qaranayaan ma garatay haye laakiin aniga degmada waxba igama dilin markii degma qoryo ma wadato waa la yaqaanaa wixii qoryaha watay baa gabadhayda dilay marka lama hadlin aniga waana diiday inaan la hadlo marka seed rabtaa marka inaa uxaliso maxkamadaas ciidamadan ku kala bixina waxaa iga warantaa adiga muqdishoad joogtaa waxaa igu maqaalaa inaad halkaa kasoo tagtay milatarigii hore ee soomaaliya aad ka mid tahay muran ama cabsi aada uga soo baxday ceelwaq ma runba aniga waxa waaye niyahow milatariga horena waan ahaa cayaartooydii horena waan ahaa ani ciidanka 67 baan ku biiray waan markii dambena cayaartooydii horseed baan ku wareegay haddana aniga meeshaas ma tegaayo mana tegi karo ma garat sababna maxaadna u tegi kara hoosaa loo kugu dhigayaa waxa weeye ma tegayo ma noo sheegi kartaa sababtaadna u tegeen waxaan u tagayn aniga oo isbitaalaan u imid halkan waa la iqalay kiliyaha la iga qalay dhagaxyaa la iga soo bixiyay isbitaalka kama dheeraan kara tan igu badan taas waaye laakiin wax dakana ama cabsiya kama qabtay xaafadaadii inaad u laabato maya aniga dakana qofna cidna waxba ma yeelin cid oo aniga haddii target oona ahayna ma jirto